حتى قفك أن دين سنين بإنه إسقاوية إني نولل كدعتها آمن سن كبرنا نوحي لها هاي يكون الدين باك بحرين هنا وإسقاوية كو علامة يكبر الله ما وحيته وإسقاويا markay arkaan radul ficliga iyo Soomaalida oo ka hadlayso oo ka xun arkaana waxay dhahnaan Christian baan nahay freedom baan nahay Christianku isma qaawiyaan wadankan hadda anigu ku noolahay iyo kan ku dhashay iyo kan ku soo korayba Christian baa u badan oo ku nool oo aad ugu badan maalinkan aqli yeesha ilaa maalinka maanta Christian baan weliga ma arag gabar Christian oo isqaawinaysa Mustafa Ashid waxa waaye why meditationku وإعاوية بدن صلاة أنت عاوزه. حلنا هاي وحيكو وحبكو قتري ويدي صلاة دا إيو عبادة دا السمين سو حي وحكو قتري ويدي عبادة دا السمين سو حي وحكو قتري ويدي اعتقاد ماذا السمين ماذا اعتقادين ماذا عقيدين سدا وحكو قبن ويدي صلاة دو يا عبادة السمين سدا وحكو قتري ويدي لأن نختارك مركز داوود كسو قادتو مركز كسو قادتو إربادة وحاد مركز هوري تغي سيبا وحاد آمن سنيد إني وحن أو أد قادانيسا استعماليسا إنو وحكو تريو كدب إربادي باد قادتي وحاد قادتي كنينكي وحاد قادتي وحي آد ماشا أما الشروبادي باد قادتي واد ku caafimaadaysa liana i'tiqaadkaaga waxa ku jira qandhada inay ka jabinayso inay xanuunkan ku haya ka dul qaadayso marka salaada tukanayso adiga oo kurbaysan hada salaada tukato oo ilaahay qalbiga kuugu jirtay kurbada inuu ilaahay kaaga qaado salaada ilaahay xaqiiqatan way ka qaadi aniga waa isku arkaa runtii marka soo salaad tukado ama aan ducaysto ama aan cibaadaysto si kastoo tirahdaba aniga oo kurbaysnaa ama wax ka sheeganayay waxaan helaa layd caafimaad qabow ayaan helaa isbedel ayaan helaa caafimaad ayaan helaa مثلا markii aan quraanka isku aqriyo anoo xanuunsan oo nabigeenu wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam quraanka markaad ama adkaarta aqrisanayso meeshii gacanta saarto oo qaabkii loogu talagalay aad suubiso آياتكي أما سورته أما دعادي النبي محمد يري اسكو أغرينا آد اسكو أغريسو وحقيقة وكو عافي ماذا إسلام مركب عافي ماذا بانكو هلا قنددي وإيقاب هذا مركان انتان تحليل كو أغريستو أما بيو كو أغريستو أن عبنا أيضا السيديو كالقد تشبين بين نقطة ولذلك داود انتان استعمالية انتان استعمال طب النبوية قرآن كان اسكو اخرنا يا سورة ذها آية ذها وحي القرآن كو يري اسكو عافية يا سنة النبي عليه الصلاة والسلام اينا دهان اسكو داوية ملبكة حبسو دادا كنت حقيقة عافمات انا كيلين داود كيميكالكا لغا قطو دخاتيرتا ايه فرمشيدا لغا قطو ايان كيلا بين والله كمشيغيو والله انت ان استعمالنا ويرتهي داو كيميكالا waxa laga yaabaa intaas oo sano inaanan isticmaalin baa dhici karta ilaahina ima baahiyo subhanahu wa ta'ala laakiin adkaarta nabi maxamed yiri isku aqriya su'aalan qaba protectiga su'aashani tan waxa weydiinaa hal qof sihirkii kaga hortagayso halka qofna waxa waaye ninka ayadan aqrista wallahi maalintii waxa laga yaabaa shanta salaadood in tukado inaan aqristo adkaarta nabi maxamed yiri aqrista kadibna aana la kulmin maalin kastoo iska daayaan wixii inaan la kulmo iyo dhibaatooyin ayaa laga yaabaa ama aan iloobo oonan akhrisanin why meditation marka horta qalbigaaga inama al-a'maalu binniyat niyadaada horta qalbigaaga nadiif ka dhig oo waxaad aamintaa waxa inaad ku caafimaadayso markaas ayay ku caafinaysaa inta waxay jawaab u tahay gabadhii sheekha soo weydiisay sheekh Mustafa soo weydiisay maxay salaada wax iigu qaban laadahay laakiin markaan caafimaadka aado iyo dhakhtarka iyo farmashiga daawadii aan ka soo qaatay wax iigu qabanaysaa oo wax qabadkeedu uga badan yahay markaan salaada tukado cibaadada sideedaba ogow waxa ay caafimaad u tahay laba shay bay cibaadadu caafimaad u tahay adduunka caafimaad bay kuu noqonaysaa آخرنا عافيمات بيكون نقنيسا أو جنة كهليسا رحمة بد كهليسا هوي في عبد كهليسا أن الدون كان وحبيكو قبر أو وحي إلهي أتكلم من قشوات كهليسا
laakiin maxaa wax walba ka horeeya ictiqaad daawadan markaad ictiqaadiso ama aad ictiqaadiso inay wax kuu qabanayso markaasay wax kuu tari laakiin daawada maanta oo dhan haddaad isku gurto aadna aaminsantahay inayna waxba kuu tarin waxba kuuma tarayso waa mujarab way og yihiin dadku laakiin markaad ictiqaadiso kiniinka markaad liqdo ama irbadan qaadato madaxa inay kuu qaboojinayso runtii markaasoo kale waxay kuu karaysaa ama waxay kuu taraysaa wax wanaagsan gabadha waxaa u jawaabaysaa gabadhan ay maalmahan dhaweyd ka hadlaynay oo dadka qaarkood markaasoo kale waa muslim adigu haddaba caqliyan diinta kama bixin ee caatifiyan baa diinta ka baxday la yidhaahdo ood waalantahay runtii baraha waa akiid akhlaaqiyada aniga subxaan allah markaan maanta salaada kusoo leexiyey waxaan malaynaa fiyus raadis weeye caan raadis weeye waxaa lagu sheegay isleedahay laakiin waa loo jawaabi waxa iyadu niyadeeda ka maagan tahay annaga ma garanayno waa u jawaabaynaa sheekhuna wuu u soo jawaabi doonaa insha allah annagana waa u jawaabaynaa hadda waxaan leenahay gabadhaasina waxaa u jawaabaysa gabadhana waa u jawaabaysaa bal dhegeyso gabadhani say ugu jawaabto waxay siisay runtii jawaab ku filan ayay siisay ayada iyo dadka su-aalaha khaldani ay kasoo dhex guuxayaan ku dhacday iimaan la-aantu ku dhacday ee diintoodii ka ridoobay jawaab fiican ayay siisay waxaana rajaynayaa inay anfici doonto oo maalin maalmaha ka mid ah dadkani ay diintoodii usoo laaban doonto adduunya duufsatay waxaa duubsatay shahwada nafsiga ah adiga oon diintaada ka bixin ayaad shahwadaada qancin kartaa adiga oon diintaada ka bixin ayaad dhaqaalo suubin kartaa adiga oo diintaada haysta ayaad qurux ku noolaan kartaa iyo xarago ma garanayo gabadhan hadda waxay u soo siyaadisay diinteeda markay ka baxday qof qaawan oo cawradeedii meel walba lagu arkayo oo runtii xaqiiqatan gaal iyo islaamba ay leeyihiin qofkan akhlaaq la-aan weeye qof akhlaaq leh ma aha qof dhaqan leh ma aha qof maanta qiimeynaya ma jirto ayadu waxay qiimo laga yaabaa inay u aragto qofka sida kelibya kuweeda aad ku arkaysa meelo badan qofka xumaanta ay wada suubinayaan xaaraanta isku arkayaan laga yaaba inay noqon karaan macnaha wada noolaanshaha ay suubinayaan boyfriend ay wada noqonayaan iyo girlfriend isku noqonayaan ayay waxay u aragtaa qofkaas inuu qiimeeyo muna qiimaynin hadduu ku qiimeeyey xataa muddo muxuu ku haysan layahay muddo ma ku haysanayo wax yar buu saaxiib kula ahaanaya marka dambe wuu ku nacayaa shilimaadkii aad ka rabtay intuu ku siyuu kaa tegayaa ayadaa sharxaysa kelibyo ay leedahay runtii xaqiiqatan mararka qaarkood ku sharxaysa arrinta noocaasa iyo boyfriend sida loo samaysta iyo qaabka loo soo jiiti iyo waxaa ka sheekeynaysa marka gabadhaas waxaan leenahay runtii adiga waxaa kugu filan jawaab waxaa kugu filan adiga isugu filan sheekh mustafana wuu kuu soo jawaabi doonaa dad badan oo kale oo muslimiinina way kuu jawaabeen gabadhaasaana kuu jawaabtay marka waxaan leenahay baraha bulshada beryahan balaayaa kusoo badatay dad soomaali ah oo waxaa kusoo batay xataa gaalnimada ay sheeganayaan kiniisad ma aadaan christian ay la aadaan iyo meel ay aadaan ma jirto dadkaasi keli a markay arkeen akhlaaqdii islaamka iyo dhaqankii muslimiinta iyo dhaqankii dadkoodu muslimiinta ay ku noolaayeen inay dhumiyeen ba waxay isdheheen meesha keli eed sheegan kartaani waa meeshee waa inaad tirahdaan christian baan nahay dadka christianka a baan ka mid nahay freedom baan helnay kuwaasina beri bay ka yihiin lianna yahuudiga iyo nasraanigu gabar qaawan miyaad ku aragtay gabar isqaawinayso oo macatabkii xidhan oo kiniisadii gelaysa miyaad aragtay ma suubiyaan lianna akhlaaqdu diin kasta akhlaaqda way ilaalisay diin kasta dhaqanka suuban way ilaalisay diimuhu waxyaabahay ka midaysan yihin waxaa ka mid a dhaqanka xataa qofka aan diin haysanin ba inuu isqaawiyo inay nololka dhactahay aaminsan gabadhanna waxay leedahay iyo kuweenna diin baan ka baxnay dhahana way isqaawiyaan kow calaamaday ka bilaabaan waxay tahay way isqaawiyaan markay arkaan radulficliga iyo soomaalidii oo ka hadlaysa oo ka xun arkaanna waxay dhahaan anaa christian baan nahay freedom baan nahay christianku isma qaawiyaan waddankan hadda anigu ku noolahay iyo kaan ku dhashay iyo kaan ku soo korayba christian baa u badan oo ku nool oo aad ugu badan maalinkan caqli yeesha ilaa maalinka maanta christian baan arkay weligay ma arag gabar christian oo isqaawinaysa timaheedii iyo macnaha jidhkeeda qaawinaysa
gabadhan Soomaaliyeed ee Queen qaawan la baxdayna meel kastay taalla oo social media ah iyadoo qaawan xataa cawradeedii qaawinaysa ayaad ku arkaysaa oo la wareejinayo marka waa qof nolosha ka dhacay marka inay cibaadadanada iyo salaadanada iyo khayrkii iyo dadka weydiiso waxaan u arkaa gef baan u arkaani